الله الرحمن الرحيم وانigii hore inoo ballan qaaday inaan labada maanso isku xiro imkana waxaan bilaabaynaa maansadii labaad ama gabaygii labaad oo magaciisa la yiraahdo Haasaawe waxaan curiyay 15 bishan labaad ee ku jirno 2017 runtii waa maanso xusuus leh mana naseexan dadkayga qurbaha ku nool waxyaabihii ka dhacay dalkii iyo wixii isdaafiyay hanjabaadihii iyo buuqii iyo hadidaadii iyo wixii la yaab ka lahaa ee ka dhacay Somaliland siba caasimada ayaanu aad uga yaabnay waxaan kaloo la yaabnay qof xiriye geedaysan loo keenay oo leeyahay oo cun wabilaashi ama haruuba caana ah oo yiri waan ka tashanaya inaan cunayo in kale ama yeelaba maayo ma cunayo oo gaajaysan oo u baahan yani waa wax aad loola yaabo waxaan kaloo aad ula yaabno hadallada magaratada ku tiro kuteenku uu ku sheekaynayo hebel sheekh baa saxeexay iyo hebla soo saxeexday iyo warnima noloshaadaba doonayn nolosha inaad noolaato qof aan doonaynin soo aqli guran maaha inuu dadka ugu sheekeeyo hebla wax soo saxeexday iyo hebel baa wax soo saxeexay waa waxyaabaha aad loola yaabo waa dacaayadaha raqiiska ah gabaygan kii hore waan ku luqaynay kan waynu midhamidhaynaynaa waxaanu ku curanayaa hab dhaqameedkii aynu soo gaadhnay oo iyada oo haatuf ii yimi habeenbar ii yimi oo yiri waan kula hadlayaa toos oo maxaad sameeyay dadkaaga iyo dalkaaga iyo u hiiliyo waxyaabaha iyo siyaabaha wuxuu dhaceen iyo yani arrimahaas soo koobkoobaya isaga laftiisa waynu korka xaadinaynaa ku talax tagi mayno ujeedaduna waxa weeye waa wax sheegmo ama hanuunin ama dadkaygan Somaliland ee horumarkoodii la dagaalamaya ee nin waliba leeyahay ana halkan leeyahay hebel baaleeya kana leeyahay ka qaban maayo kidish iyo waxyaabaha caynkan la yaab kale runtii maanso dambaynu ku sheegi doonaa oo isu daran la yiraahdo barnaamijka laftiisa ka hadlayo isla curiskan iyaduna silsiladan ku jirta way noo dambaynaysaa waxay tiri ama uu yiri gabaygu bismillaah waxaan kala ka cudur daaranayaa ma qabto dusha iskuma hawlo inaan dusha ka qabto waayo xogaaga yar quraanka aan xafidsanahay ayaan ka baqaa inuu igaga guuro waanu ku guuraaba inta yar quraanka baa igaga tagaysan xafidsanaho ma jecleena qabto inaan akhriyaaban jecelahay qoraal ku sameeyo ma hadaynin waayadan tixiyo hooyadii gabaye hal abuur ma doonyoon intaan loo khaloosiyay hiyiga calooshana ma gelin haarinimadii sidii dhagaha la isaga huwaday waan ka haayirayay rag baa hooda iyo faan ku jecel inay ka heesaane anigu haybad iyo qaraniman ugu hogeeyay dhaxan hambeeyay xilligu hudiyay oo riixiye hayntiisa waa doonayay la iska hari waaye hawl yari u galay wiilalaan hubinay deelay hawl yari u galay wiilalaan hubinay deelay haydaaradii xaasidkii yahuuda soo baday hagaageeda Somaliland hiftay doqontii ka hataare guushiyo nimcada soo haraaciday hogaanshaha warkiisa la diid horumarkeennii xalun baan hantaaqada ku lumay hibashadiisii ay horrimaad iyo daruuru heega ii timi wax la yiri hurdow toos adaan kula hadlayaa wax la yiri hagoogta iska qaad haatuf baan ahay warmaandhow hal dhaan wada ayaan hoos wax ku fariyay waxaan ila hadeer waa saq dhaxay haatuf goor kale wuxuu yiri baryahan iga hadhayo hiile ma tarin waxaan iri dadkuba kala huleel hooyo iyo wiile wuxuu yiri intaad ku harsanayd carabta hooygeeda eed halaska kooliga niyo howlahan tutuuleysay 5 bilood adoon helin mushahar ciga ku hiifaayay eed heed dhawaalaha dad lumay ula hobshaynaysay hakrataye dalkaagii miyaan dariba ka haynin waxaan ila hadeer aakhir saban hanada weeyaane
mid kastoo naftaada u hurtaa haydhaf kugu sheegiye hagrashiya abaalxumana waa haynu gooniyahe horena ilmo nuur baa ku qoray hilinka suugaane haya marag furkeedana salaan hibashadeed baanye annahaa taqaayibay inaan cadhahi goodaaye aan hawl yarayste idaahaa tufayluurinaba gabayada abaaldhaca inta aynu ku hayno taariikhda ama imika ka soo qaadayno rag badan baa ka gabiyey laakiin waxaynu ka xusnay faarax nuur ilaahay naxariistii jannaha siiyo maxamed nuur fadal ilaahay naxariistii jannaha siiyo iyo salaan carabi xusuusta waanaynu xusuusan karnaa gabayadii abaaldhaca ay kaga hadlayeen marka wuxuu leeyahy dadkeenu abaaldhaca ayay mushkilad ku yihiin oo qof kastoo wanaag ku taray qof kastoo wax u qabta abaaldhac bay ku sameeyaan aan hawl yaraystee idaahaa tufayluurina baan idhi wuxuu yidhi hubaal odayba way haysataa taniye misna inuu ka hadho waa u xuntahay hurantidiisii wuxuu holo og yahay baa jiri uu ka hortegayaaye hoggan dhabardalool buu arkaa haabta loo shidaye hilbihiisa lagu sii waduu ka hortegayaaye hilbihiisa lagu sii wado yuu heeganka u galaye halista iyo dhibaatada jirtuu kaga hagoogtaaye hanfadaal la qoolaayo buu hoy ka leeyahay hor ilaahay buu daacadnimo ugu hanuunshaaye adna inaad halkoodii martaa way habboon tahay waxaan idhi haddaad iigu dirqaday haatufow gabay oo aan hawaalaha wixii dhacay ka haasaawo niyow doqontu waa hana bugtiyo hudha dameeraad waa haydal muuqeedu jiro ka ugu hayb xiga waa ruux libtaad iyo hakrada hiil waxaa tari waa ruux habeenoon arkayntay hadhow noqon habeenoon arkayntay hadhow noqonni habaaska ha meeraysatay habacsan yeelkeeda baan halkar iyo ilaahbow dhacshaye hagar ma quudheene haways waa dhashaye caanahay ka hirqan laayeene heshiis bay ku wada deeqilayd waa hashaadihine ma heleen ka dhaadhiyaynayaa sidigta heemaale ma gujeen horaadada markay godashay hiiraane weel maran ha heenheensatee habacsan yeelkeeda baan halgan iyo siyaasiba xarbigay heegu diriraysay halgaadii iyo dagaalkii ku dhacay hoyga gurigeeda hoorkiiyo nin doorkii ku go-ay hela ujeedkiina habqankiyo qaxoontiga madficii lagu hidiidayey hengashiyo gabdhaha qorweyntii haadka iyo tukuhu boobay hilibkooda hengashiyo gabdhaha weerka xidhan hulashataahooda iyadoon hawaariin la dhayin haybu kala sooca durbaba way hilmaameen wixii hawla soo maraye iyadaa hidaayaha gashaye habacsan yeelkeeda baan wixii inagu dhacay ee oday ka sheekeega ahaa durbaba waa la laqayo waa la hilmaamay waxaana yani dariiqyo kale oo aada looga xishoodana ragga qaar weliba mas-uuliin way marayaan macalasif marna kama hadhaan beentanay ku hawisaayaane dadkaygii habaar baa ku dhacay hubantidiisiiye waa waxa hayaankaa baday ay u harhsan waayeene waa waxa habsaanshaye qallibay horumarkoodiiye waa waxa habsaanshaye qallibay horumarkoodiiye waa waxa hankoodii ku xidhay haydal iyo tuug waa waxay habraha ugu limeen hilinka naareede haddaanay hadh iyo liibaanta geyin habacsan yeelkeeda bu anaa idhi ma hambayn abwaankuyo qalbigii haynayaa maqaneb in badan buu hadraawiba u dhigay hadalka suugaane hoggan lagu janneegii cabdi baa hoosu sii yidhi ina xaanshi heensaha u qabay hagar la-aaneede xasan ganay hiddaha dhaqanka geli hubantidiisiiye halyaygii gadhlaba maayadaha ugu hareereeye howlyari u sheeg aadankii heeganka ahaye haddaan la hagran ee looga digay habacsan yeelkeeda intaa dadka aqoonta leh iyo inkastoo ay dhaliilo badan leeyahay raggii sugaanyahanka ahaa waa ogtihiinoo kacaankii kaba weyn waxa uu dalka iyo dadka ku qabsaday brobagando ayuu ku qabsaday wixii waxaa wadeen reer waqooyi bay ahayn waxaan la yaabanahay waxa afkoodii isku xidhay isku tolay ayaan la yaabanahay bulshadooda ugu sheegi waayeen wacyigelin ay ugu samayn waayeen baan la yaabanahay dalkayga dibadaha ku noolay
ama qof kasta oo dee Soomaad garan raggii abwaanada ahaa ragga antinoniyamka wixii nool iyo kuwa kaleba waxa ku dhacay baan la yaabana laakiin waan iskaga afgabaadsanayna oo inala hadleen haddaan la hagrane looga digay habacsan yeelkeeda waxba yaan halaan halin sidii horrigoo kale waxba hana dadiiga dhintiyo haartayaan dayine hab mucaarad waygala fog yahay hadalka qaarkii hebelkiyo u yeedhyeerkan hahayda dhow ee markiiba lagu hadaaqayo hebelkiyo u yeedhyeerkan aan la hidaraacaynin hankan madiga kugu xeerayba hoos idin dhigay madiga hadiyo goraale waxay dadku yidhaahdaan waa ninka aan inama kale hooyaday dhalin laakiin madiga gurani kaasoo keliya maaha mid baa siyaasadda madika ah oo ka guran oo badan siyaasi guran baa jira suldaan guran baa jira caaqil guran baa jira siyaasi guran baa jira bulsho guran baa jirta wixii ka guran caqliga ee sida saliimka aan u fakerini waa madi habkan madiga nagu xeeray baa hoos idin dhigaye heegoy raggii soo dhacshay bow sida hadhuubkiie wartaa hirdoogliya la furay hamashka geedaaye waa taa nimcadii huursanayd loogu howlgalaye waa taa hoggaanshii dalka iyo baasha soo hogayb db wall hanaankay ku timi cadowga haaraanyib qaar baan arkaya ka weydiinaya tviyada ka weydiinaya waxaa la yidhi khadiijaa kuu saxeexadahay bal ka waran war imisaynu leenahay imisay Somaliland jirtay imisaa jiray nin jagadaa uu hayo inankaa yidhi oo kala haya wuxuu ka soo baxay cimriga haraaga baanu leenahay taariikhdu ku jiraa baashi imisaa jooga safiir dunida jooga Somaliland inuu jooga xafiisya inoo jooga waa ninkii koobaad ee qaatay tallaabada caynkaasi iyo horumarka inta leeg dalka soo geliyay in loo abaal gudo oo meesha marayaba salaamiya iyo kalgac lagu salaamaa buu baahan yahay db wall hanaankay ku timi cadowga haaraanye ayaamahanba haad iyo tuke baa nagu hagoognaaye ayaamahanba haad iyo tuke yaa raqu hagoognaaye ayaamahanba haad iyo tuke yaa raq u hagoognaaye hanjabaad colaad iyo baqay nagu hidiideen allahu akbar hor ilaahay geesigu libtuu heli ogaadaaye guurtidu hubsiimada coddheer guurtidu habsamiday coddheer ugu hidiidaysay ee habar masooriyo fulaha loogu halakeeyey hadalkii saleebaan bulshaduu hiil ku taabacaye ha noolaato Somaliland hubanti weeyaane. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.